بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ونكسن. waxaan ugu hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakeysan ee Ciid Fitriga. Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Munaasabadan farxadda leh ee Ciid Fitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhamaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxadan maalmahan barakeysan ee ciida ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee u sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqeynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hogaansano talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena. waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah iyadoo lagu guda jiray bishii barakeysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. munaasabadan ciida ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeena qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakeysnayd. ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo dalkeena oo nabad iyo barwaaqo ah kuna sii tallaabsada jidka horumarka. ciid wanaagsan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.